بسم الله الرحمن الرحيم وعلى وناكسان daawadayaal dhegeystayaal meel baad joogtaan halkani waa Beledweyne City isha wararka qodobada aan maanta diiradda ku saari doono waxa ay kala noqon doonaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay deegaanadii ay dirirtu ka socotay ama gulufka loogu jiro in meesha looga saaro kooxda argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale war hadda soo dhacay oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ku shaacisay hogaamiyaal kale oo hor leh oo ay cunuqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga socdaalka ama liiska argagixisadaba ay ku dartay horaantii bishan ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay soo saartay 10 ruux oo ay ku dartay liiska argagixisada oo ay ku tilmaantay inay yihiin xagjiryaal al-shabaabna howlo fara badan u hayo iyada oo dhanka kalena markaad eegto dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay markaan muddo inay dagaal ay dad badan ku dhinteen ama dagaal ay kula jiraan kooxda al-shabaab oo runtii dagaalo waayadii dambe uu ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan iyadoo oo gobolka Shabeellada Dhexana maalmahan ay ka socdaan guluf dagaal oo looga saarayo kooxdan al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa waxa aad moodaa in markaan ay wajahayso caqabado adag oo xagga dhaqaalaha militariga iyo xagga saanada ayada oo la soo sheegayo inay ka jirto dhanka al-shabaab daawo la'aan baahsan oo la leeyahay ma jiraan wax daawo ah saraakiisha ama ciidamada ku dagaalama dagaalada ay kula jiraan kooxda ama dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa shacabka oo isbiirsanaya al-shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu guud curur ay ku dhaceen oo xaaladoodu ku xun tahay ayadoo ay jiraan in dadka shacabka iyo dowladda federaalka oo dagaal adag kula jiray waadi dambe ayaa waxaa haddana soo kordhaya in dowladda Mareykanka ay eedan dhinaceeda shaqooyin culus ka hayso iyadoo horaantii bishan aan xasuusano in dowladda Mareykanka ay soo saartay 10 ruux oo ay ku dartay liiska argagixisada oo ay cunuqabateen dhan kasta ah ama madaxooda ay lacag duldhigtay balse maanta ay dowladda Mareykanka mar kale waxay soo saartay dad kale ama liis kale oo 5 ruux oo ka tirsan kooxdan oo ay ku tilmaantay ama ay ku dartay liiska argagixisada ninka ugu horeeya Maxamed Mire ayaa lagu yeeraa waxa uu sheegay in ninkan uu yahay hogaamiyaha ka tirsan kooxda al-shabaab mas'uulna ka yahay ama saameyn weyn ku leeyahay istiraatiijiyada iyo howlgallada kooxdan waxaa la sheegay ninkan inuu qayb ka yahay ama uu yahayba dadka kariya siyaasadda gudaha waddanka ee kooxda al-shabaab oo waxaa la sheegay inuu ka mid yahay saraakiisha kuwooda ugu miisaanka culus oo xagga la tashiyada iyo go'aaminta ama karinta siyaasadda gudaha inuu qayb weyn ka leeyahay sidoo kale waxay dowladda Mareykanka soo saartay liiska labaad ama lambarka labaad ay ku sifaysay nin lagu magacaabo Yaasir Yuusuf oo runtii asagana bayaanka dowladda Mareykanka ay ku xustay in lagu eedeynayo ama uu qayb ka yahay hogaamiyayaasha ugu sarreeya al-shabaab gaar ahaan uu yahay la taliyo u yahay garabka hubeysan ee kooxda ninkan wuxuu qayb ka yahay ama uu la taliyaal u yahay ama taliyaal u yahay garabyada hubeysan ee kooxdan waxaana loo yaqaanaa afgarashadiisa jabha kaasoo fuliya dhammaan weerarada al-shabaab ay ka geystaan faahfaahin kale dowladda Mareykanka ma aysan bixinin shakhsigan balse waxaa la soo sheegayaa inuu qayb ka yahay dadka ugu halista badan kooxdan Yuusuf Axmed Xaaji Nuurow ayaa lambarka 3 dowladda Mareykanka maanta ay soo saartay galay waa ninka saddexaad ee magaciisa lagu sheegay oo warka laga soo dhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaaminayo Anthony Blinken waa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ninkan ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Axmed Xaaji Nuurow oo sidoo kale loo yaqaano afgarashadiisa gees cadde waxaa lagu tilmaamay inuu yahay madaxa qaybta sirdoonka al-shabaab oo dad badani u garan og yihiin ama u yaqaanaan amniyaadka waa kooxda amniyaadka ee madax jabiska dadka Soomaaliyeedna aad moodo ama dad inta badan mas'uuliyiin iyo dad waxgal ah bulshada Soomaaliyeed ee amniyaadkani toogasho ku dileen marar badan ninkan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay madaxa amniyaadka kooxdan sidoo kale qofka afraad ay dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lagu magacaabo Mustafa Cato sidoo lagu qeexay isla warbixintan Mustafa Cato oo ka tirsan madaxa sare garabka amniyaadka ayaa ninkan uu yahay mas'uulka isku dubarida fulinta weerarada al-shabaab ee ka dhaca guud ahaan Soomaaliya iyo Kenya waliba ninkan waxaa la sheegay inuu qayb ka yahay amaba uu ahaa dhinaca arrimaha dibadda u qaabilsan kooxda al-shabaab ama howlgallada waddanka Soomaaliya ka baxsan ee wadamada dariska gaar ahaan waddanka Kenya weerarkii waliba wuxuu qayb ka ahaa sidii la sheegay weerar ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi hotel lagu magacaabo ama hotel ay lahaayeen dadka Yuhuuda oo ku yaala magaalada Nairobi inuu qayb ka ahaa weerarkaasi waxaana inta badan la sheegaa ninkan inuu arrimaha
sirdoonka arrimaha dibadda ee u qaabilsan yahay kooxdan al-shabaab. ninka afraad ayaa ama ninka shanaad ayaa waxaa lagu magacaabaa sida dowladda Mareykanka warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maanta ay soo saartay ay ku sheegtay Maxamuud Cabdi Aadan. waana qofka shanaad ee magaciisa lasoo bandhigay. Maxamuud waa nin Mareykanku ku sheegay inuu yahay xubin ka tirsan hogaamiyaasha al-shabaab. ninkan ayaa si gaar ah lagu tilmaamaa inuu qayb ka yahay kooxaha qorsheeya weerarkii 2019 lagu qaaday hoteelka Dustisto ee magaalada Nairobi. muwaadiniinta Mareykanka ayaa loogu digay in ay wax lacag ah u diraan shakhsigan oo ayna ka foojignaadaan la shaqaynta iyo la falgalka Maxamuud Cabdi Aadan oo maanta ka mid yahay ama lambarka shanaad oo ka galay liis dowladda Mareykanka ay soo saartay oo ay liiska argagixisada ay ku dartay. dhawaan ahayd markii dowladda Mareykanka ay shaacisay magacyada 10 qofood oo Soomaali ah oo ku tilmaamay inay dhinaca dhaqaalaha ka caawiyaan al-shabaab. dhammaan dadkaasi ayaa lagu soo rogay cunaqabatayn dhan kasta laguna daray kiiska ama lagu daray liiska argagixisada. kooxda al-shabaab ayaa waxaad moodaa in ay sii leecayaan iyadoo Mareykanka iyo dowladaha saaxiibka la ah dowladda federaalk ee Soomaaliya ay weeraro dhanka cirka ah ay ku geystaan, gaar ahaan ceel gaduudow oo runtii la sheegay in bartilmaameed weyn kooxda u lahaa oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska ay qayb ka yihiin ama qayb ka ahayeen weeraradii loo geystay kooxdan, iyada oo inta badani dagaaladani ay kasoo bilaabeen gobolka Hiiraan oo hadda la soo sheegayo in 80% dhulka gobolka Hiiraan ay kooxdani laga sifeeyay oo ay jiraan deegaano kooban oo ay weli gacanta ku hayaan, iyada oo intaasna ay kasii firxanayaan sida amaba ay sii baacsanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa shacabka oo aad moodo markan in ay gurudda u geliyeen ama ay dhegta dhiiga u dareen kooxdan oo caqabad ku ay 15 sano la soo dhaafay geedi socodka iyo nabadda iyo madax banaanida iyo jiritaanka dadka Soomaaliyeed.